jumcada haddaad soo ajiibtaan oo ilaahay aada weynaysaan oo jumcada darteed hawlihiina adduunyo aada uga soo tagtaan markii jumcadu ay dhammaatana arsaaq xalaala aada raadsataan ilaahayna aada xustaan oo idaan hilmaamin intaasoo arrimood haddaad kulansataan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu idiin ballan qaadaya inaad liibaantaan ood guulaysataan adduunka danaha aada leedihiinna aada ku guulaysataan aakhiro danaha aada leedihiinna aada ku guulaysataan lacallakum tuflixuun falaaxa carabiga waxaa la yidhaahdaa albaqaa'u fi lkhayr addawaamu cala alkhayr in waxa dantaada ah aada ku nagaatid ood ku xasishid oo waxa aad ku sugan tahay oo dhan uu khayr yahay carabiga saasaa lagu yidhaahda walihaadaa qofka mu'adinka markuu dhawaaqayo ee uu leeyahay xayi cala asalaax xayi cala alfalaax dadka wuxuu ugu yeedhayaa oo ugu dhawaaqayaa inay soo ajiibaan oy soo aadaan waxa dantooda rasmiga ay ku jirto ayuu ugu yeedhaya wuxuu ugu dhawaaqayaa qofkii soo ajiibo oo masjidka soo aada waxa uu soo aaday uu soo doontay inuu yahay khayrkiisii rasmiga ah inuu yahay ayuu ugu dhawaaqaya qof kasta oo maqlaya oon soo ajiibin macnaheedu waxaa weeye halkaas khayrigama jiro qof kasta oo soo ajiibayna waxaa la rajaynayaa inuu khayrka ilaahay ka aqbalo nabigeennana calayhi salaatu wassalaam si ay dadku u ogaadaan in masjidka la soo aado oo jamaacada iyo jumcada la soo aado inaan lagu khasaaraynin oo wax risqiya qofka uusan ku dhaafaynin waxna aan lagu waayeynin arsaaqdu ay qoran tahay waxa ilaahay uu kaa siiyana uu kugu filan yahay wuxuu ku soo gabagabeeyey qad aflaxa man aslam waxaa liibaanay qofka ilaahay isu dhiiba aslama ay istaslama lilaah qofka ilaahay isu dhiiba oo ilaahay u hoggaansama qofkaasaa liibaanay khayr qof ku sugan haddii la raadinayo qofka ilaahay ka amar qaatay ee ilaahay u hoggaansamay baa khayr ku sugan buu leh warusiqa kafaafan arsaaqdana laga siiyey wax ku filan quutu yowmihi maalintaa wuxuu quuto haddii la siiyo arsaaq waa ugu dhan tahay sababtoo maalintaas kadib inuu noolaanayo lama yaqaano laakiin maxaa ka dhiman weli waqannacahu allahu bimaa aataah ilaahayna uu ku qanciyey oo qalbigiisa uu ku weyneeyey inuu ku qanco uu ogaado waxa ilaahay siiyey inuu khayrna u yahay kuna filan yahay